runtii caaw waxay tahay farxad weyn inaan iskugu nimaano xafladda tan ee lagu magac daray xaqiijintii nabadda. arrintan iskama imaanin si fududna kuma imaanin ay waxay ku timid waqti lagu bixiyay runtiina aan rabo inaan ugu mahad celiyo dadkaas ay ugu horeeyaan oo nagu dhiirigeliyay inaan ku baxno colaadda meesha ka socota madaxa xukuumadda Dr. Sheekh Shaakir Cali Xasan, wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya, wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda Soomaaliya, xafiiska ra'iisul wasaaraha, la taliyaha arrimaha siyaasadda iyo dhismaha Professor Yaxye, xildhibaanada dhammaantood waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin. waqtiga oo kooban haddii aan soo koobo arrintii aan meeshaan uga baxnay bishii September 13 maalin Jimco ah waxaan ku baxnay meel ay ka socotay colaad dhiigna oo ku daatay meedna uu yaalay. ugu horreyn waxaan ku guulaysanay inaan kala qaadno maleeshiyaadkii dhirtu dhex martay. meesha markaan tagnay maleeshiyaadka islaynayay way iska soo horjeedeen, dhufiisya u kala qodnaa. colaaduna waxay ahayd meel aan la saadaali karin. qodobka labaad wuxuu ahaa oo noo suuro galay inaan ka aruurino maleeshiyaadkii meesha ku dagaalamayay hubkii ay haysteen. waxaan mamnuucnay inta ka dhaxayda labadaas deegaan Balanbal iyo Gurceel in aan lagu qaadan karin wax hub ah. hubkii lagu arkana ay la wareegto ciidanka dowladda Soomaaliya, qofkii ku dagaalamana lagu dilo dibna aan loo celin. waxaan kaloo ku guulaysanay isku keenista waxgaradka labada beelood. waxaan iskugu geynay degmada Balanballe, way wada fadhiisteen, way wada hadleen, waxayna ku heshiiyeen qodobadan soo socda. kow, qofkii qof dila in la waafajiyo shariicada islaamka. labo, in qofkii qof dila qofkii u kaalmeeya oo qariya ama saada in la waafajiyo sharciga wax uu ka qabo oona mutaysto ciqaabta uu leeyahay. waxay kale ku heshiiyeen waxgaradka labada degmo sida hore aan kugu sheegaba inuu mamnuuc yahay wax hub ah. waxay kale ku heshiiyeen inta markay sugnaato oo la xaqiijiyo inay iskugu yimaadaan gogol ay ku wada hadlaan oo wixii dhex maray oo dhibaato ah ay iskaga daaweeyaan. waxaan leenahay odayaasha ballantii annaka aadna farteen oo aad nagula ballanteen oo ahaa in heshiiska meel la soo gaarsiiyo la iskugu imaan karo waan soo gaarsiinay. maantay waxuba ma jiraan. waxay maree in dadka shacabka ahi xataa hadday arkaan mid faas wata ayna soo wacaan. iska dhaaf in qori la qaatee. markaan waxaa la jooga kaalintiinnii odayaal waa inaad isku timaadaan wixii aad hore uga ballanteen oo ahaa haddii la gaaro meel lagu wada hadli karo inaad wada hadashaan. agoontii iyo dadkii dhibaatadu gaartana aad madaxa u salaaxdaan. waa la jooga xilligiinni. waxaan kaloon ku guulaysanay isdhexgalka dhalinyarada labada degmo. waxaan rabaa si qaasa horta inaan ugu mahad celiyo dhalinyarada Balanballe. markii ugu horreeyay oon isku nimid oon ka codsanay in la sameeyo isdhexgal si automatically ay hore uga bilaabeen.
waxay kaloo noo ballan qaadeen degmada Balanballe dhalinyaradoodu inay sameyn doonaan seminaaro ay ku qabtaan geedaha quraacda ah hoostooda ee ka dhaxeeya labada degmo si dadka loo gaarsiiyo dadka dagaalamahay runtii waa dadka baadiyaha degan walow degmooyinka kuwa joogaan ay kaalmeeyaan oo back up u yihiin aad u mahadsantiin degmada dhalinyarada degmada Balanballe ballanqaadkii aad bilowdeen qaybihii hore waa aragnaa waxaan noo dhiman inaan ku aragno quraaca hoostiisa waxaan kaloo ku guuleysanay inaan isku keenno ganacsatada labada degmo oo isku yimaadaan degmada Balanballe waxaan rabaa inaan si qaasa ugu mahad celiyo ganacsatada degmada Guriceel oo iyo ganacsatada degmada Dhuusamareebeed oo xagga noogu yimid haddana aan iska imaanin ayagoo dhiirigelin ah noo yimid aad u mahadsantiin mudane Sheekh Maxamed Shaakir madaxa xukuumadda arrintii waxay maraysaa maanta halkaas aad nagu bogaadeen oo noo dirteen waxay maraysaa meel markii hore aad rajaynaysay oo ahayd in nabad ka timaado ciidankii qalabka siday ee Soomaaliyana wali meeshii joogaan dadku deegaanku waxay naga codsadeen in aan dib looga laabanin arrinta meeshan ka socota waan ka soo ballan qaadnay waxaan hortiina ka cadeynaynaa Ilaahay hadduu yiraahdo ilaa meeshaasi ay noqoto in la waayo laba qof oo isfiirinaysa inaan ka soo tagin ama aan ku wareejino ciidamada booliska ay lagu talagalay deegaanka inta yimaadaan ay hawshan la wareegaan